haddii aad maqli jirtay taageerayaal xamaasadeysan oo taageero koox kubadda cagta ama xul maanta waxaan idin hayaa taageero aragala isla markaana si weyn uga soo dhex muuqday koobkii degmooyinka gobolka Banaadir ee 5 Diseembar ee sanadkii 2019 ay ku guuleystay degmada Dharkeyle ee gobolka Banaadir. Dalmar Cadow oo ah daa'ir aragala wuxuu noqday taageero u wanaagsanaa koobkii degmooyinka gobolka Banaadir. maan xiriirka ay ku kooban degmada Dharkeyle min sare ilaa hoose ciyaartooyda dhammaantooda waxay ugu dhiirigelin jireen in aan ka mid noqdo taageeraha aan mar waliba soo baxo. dadka kale gaari ayaa ay dadka caadiga ah raac jireen iyaga waxay ugu aamineen inay soo saaraan gawaarida oo ciyaartooyda lagu soo qaado gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa iyo tababaraha dhihi jireen Dalmar araga hadaa la adahay qalbiga maaliyad wax walba waa dawoodaa waa sameyn karaysaa taasi ayaa ii suurto gelisay waqti walba Dalmar wuxuu ahaa xaadir si kalsooni u siiyo xulka matalaya degmada Dharkeyle degmooyinka kale gobolka Banaadir dhalinyaro oo saaxiibo aan u nahay way jireen oo aragala meesan ka soo qayb gali jireen waxaan ahay sanad waliba hadii degmooyinka dhalinyarada aragala ay ka qayb gali waayeen way adiga hormuud ugu noqoysay inaan wax loo bilaabo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa muhiim u ah degmada Dharkeyle waxaan u mahadcelinayaa mar waliba kun iyo koow jeer macallin qaali inagu ah macallin aan iloobi karin nolosheeda inta kale aan iloobeen waa macallin Ismaan Carfaaye ma aaminsana inuu yahay qof aragala haddana wuxuu haystaa dhiirigelin aad u xoogan waxaan waan guuleysan doonaa habeenkaas baaqday xataa oo baaqatay ciyaarta misdeheenin Dalmar aragala adahay caqabadaha kula kulantay habeenkaas ama ha ahaato dadkii isjiraan lagu dhacay kaligaada soo baxday ama si kale wax u fahamtay laakiin waxa aaminay you can do what awooda waan ima kareysa alxamdulillah waan habeen kale waan soo xaadiray si fiican u daawaday ilaa koobka ka dhamaad 8 saacadood koobka degmada laga keeno garoonka anaga waa soo warbaxay ilaa garoonka degmada laga keeno koobka habeenkaas aad u soo jeedo waana sugay aadan u sugay macalinka kooxda degmada Dharkeyle macallin Ismaan Carfaaye ayaa nala wadaagay in Dalmar uu ahaa qof aad u wanaagsan iyaga qudhoodan ay ka heleen dhiiranaan taageerayna qaaliga ee Dalmar runtii waxaan dhihi karaa wuxuu qayb ka ahaa ku guuleysanay tartanka degmooyinka runtii mar oo naga haray ma jirto sidoo 4 saac noogu maalinta geemka alleena 4 saac soo noogu yimaado ilaa iyo ciyaarta ay ka dhamaato garabkeenu taagnaa wuxuu noo ahaa taageere runtii ani ma aaminsano dhaala yahay waxaan aaminsanahay inuu yahay nin qalbigiisa oo aad iyo aad u furan yahay waa dareen aan la qiyaasi karin in aad noqoto taageere matala degmadiisa adigoo ah qof 66 aysan taam ahayn aan kula tali jiray war maanta taa barnaamijka shabari waa badinaysaan mar waliba waan ku dhiirigeli jiray anna way dhiirigeli jireen sidaas ay ku noqotay in aan noqdo xamaasadeeda marka garoon ku jirana xamaasadu way ka duwan tahay inta banaanka aan ka joogo waayo xamaasadii aad u kacsan tahay maalinkaas waqti fog ina imaado mar qaar wadooyinka ciriiri haday iga soo tagaan waxaan adeegsan jiray wax la yiraahdo transport ama bajaaj soo raaci jiray waan imaan jiray hal ma ina seega hadaa xanuunsan xataa ina soo aado waajib maanta degmada Dharkeyle waxaan rajaynaynaa inuu ka mid noqdo Dalmar maamulka isboortiga degmada sidaas waxa yiri macallin Carfaaye weligay ma arkin baani qof indalla inta soo ciyaaray amba intaan aniga soo dheelay amba inta wax soo maamulay qof indalla oo ma aragtay ciyaar fiirsanayo waa markii ugu horeysay aan arko wuxuu ugu imaaday intaan tartankan bilaabanin ayuu garoonka anagoo tababar bixin noogu imaaday markaan arkayni indalla jecel maalinta inuu soo garab istaago ciyaartooyda ayaa waxaan aniga aan isku targareeyay inuu qayb ka ahaado nala qadeeyo baawrka nala raaco ciyaarta nala tago because asaa iga keensaday asaan igu imaaday tababarkii 2 bil ka hor intaan ciyaaraan bilaabanin ayuu garoonka noogu imaan jiray anagoo tababarka meesha asaa soo logay jiray meesha noogu imaan jiray tababarka qodka fiirsan jiray intaan maamulo degmadana waxaan jeclahay حتى إنه قيب كأدونه مامور كإسبورتي دائما بالكيلة دولا كلام نقول. abaalmarino kala duwan ayuu ka helay taageerayaasha degmada iyo maamulka intaba laakiin waxa uu baahnaa dhiirigelin aad u xooggan halkan horta waa meesha aan ku dhashto aan ku barbaare aan wax ka baranayo waa degmada hooyigay waay mar walbana taageero afka kaliya mana qadooniye taageero hiil iyo hoo iyo maskaxdeeda iyo qalbigeyga iyo wax waliba aan awoodo inaan ku taageero degmadayda محمد حسين أحمد تلفزيون كأرتين مقدشو.